maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago duco lagu caafimaado. haddaa adiga xanuunsan tihid isku akhrisid inshaa allah waad ku caafimaadi. qof xanuunsan haddaa ku akhrisidne inshaa allah wuu ku caafimaadaa. haddaba ducadaas maxay tahay? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qof walbo annaga naga mid waxaa laga yaabaa maalin inuu xanuunsado waa adduunyo, ama caruurtaada ama faamilkaaga mid ka mid ah inay xanuunsadaan, ama qofaa jeceshihid inuu xanuunsado, ama asxaabtaada inay xanuunsadaan. haddaba arrimahaasoo kale hadday kugu dhici lahaayeen maxaa samay lahayd? waxaa laga yaabaa inuu emergency isla markii telefoon inuu qabto 911 waco, cunuga iga xanuunsan ama waa xanuunsanahay ee kaali ka soo gaara, inuu yiraahdo ceeb miya maya waa sax. waxaa laga yaabaa inuu culimo u yeeray lahay kaali caruurta quraan ha ligu aqriyo ama adkaar ha ligu aqriyo, ceeb miya maya waa sax. inuu asiga laftarkiisa quraan ama adkaar kale uu ku aqri lahay, laakiin exactly wuxuu ku aqri lahay uusan ka siinaa laga, laakiin arrimaas uu sameeyey qalad miya maya waa sax. laakiin maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago duco nebi maxamed ku salli sallallahu alayhi wasallam markuu asiga xanuunsado uu isku aqrin jiray, markii asxaabtiisa ama caruurtiisa ama qaraabadiisa xanuunsadaana uu ku aqrin jiray. saxaabadana ridwaanullaahi calayhim saan anaska arki doono uu baray ayaan rabaa inaan kula wadaago. haddaba ducada si fiican u dhageyso. allaahumma rabba annaas أذهب البأس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. في دعاء نحيك باللعبتي اللهم إلهي محاكو حج سمرك رب الناس ربي نأبوري نخلق التوسل واي إلهي مقعيديسا أو توسليسا. اللهم رب الناس أذهب البأس لب كان إهاية أما قف كان هايو كقات جسد كقات واشفه عافي وأنت الشافي إلهي قفك وحا عافية وأذيك وارن نخترك وحو كسينا والسبب meeqa dhakhtaraan tagnaa daawo lagu soo qoray oo aan ku caafimaadin, laakiin ilaahay hadduu ku caafiyo 100% waa caafimaadaysa. hadalka ma taagno. marka ilaahay waxaa ku weydiisanaysa magaciisa qofkan inuu caafiyo. washfihi wa anta shaafi markaa soo tiraayad waxaa leedahay ilaahayo waxaa caafisaa shifaa'an caafimaad laa yugaadiru saqama, aan jira ka tegaynin. qofka markuu xanuunsado daawo kastoo la siiyo weli aahaarta jirada waa ku dambaysa. qofka haddii jirkiisa wax noqdaan, haddii kareema la siiyo weli dhibacda inay ku dambeeyaan laga yaabaa. qofka haddii uu xanuunsan yahay oo ku dhaco jiro ku dhacdo, aahaartii daawadii weli way ka muuqataa. laakiin ilaahay waxaa leedahay ilaahayow ishfihi, qof wax caafiyo oo adiga ahayn ma jirtee. ishfihi shifaa'an laa yugaadiru saqama, jiro oo meesha aan ku heraynin. waxaa siisaa caafimaad oo aan jiro ka tegaynin. caafi, wax walba ka caafi. hal arrinoo xusud mudan, qofka markii ducadan lagu aqrinayo waxaa fiican meesha xanuunsan uu ka sheeganayo in gacanta la saaro, haddii meel gacan la saari kara tahay. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam meesha xanuunsan qofka uu ka xanuunsan yahay ayuu gacanta saari jiray litafaa'ul, siduu ilaahay ugu caafiyo. madax hadduu xanuunsanya madaxa laga saaray, hadduu caloosha xanuunsana caloosha laga saaray. meesha xanuunayso ayaa gacanta laga saaray. saaritaanka gacanta la saarayo culamada waxay dhaheen litafaa'ul waaye. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ducadaana barayna waa ku dayanaynaa, asigaa khayrkana baray. gacan saaritaanka haddaysan faa'iido lahaa lahayn nebiga ma sameeyeen. idan
markaa xanuunsan tihid ama qof xanuunsan aa u tagtid oo ducadan ku aqrinaysid ha hilmaamin gacanta inaad saartid ama adiga isa saartid. ugu dambayntii walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunka iyo balwada iyo musiibada hanaga haaya iyo ibtilahaba ducadan xifdi way ku anficaysaa wallaahi. walaalaha kalena la sii sheergaray, waxaa laga yaabaa inuu jiro qof xanuunsan oo u baahan ducadan. usii gudbi, waxba ma khasaaraysa. haddaa walaalka usii sheergaraysid waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ku caafiyo, adigana ajri aa ku heshid. bakhiil ha noqonin, khayrka agtaada marna yuu istaagin. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiya qof kastoo xanuunsan. aamiin dhaha. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waa inuu duco soo socotay insha allah tacaala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.